بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحلقدني أما عشر كني لبات عشر هذه رمضان waxaan ku soo qaadanaynaa laba arrimood sidii cashirkii horeba aynu laba kal hore ugu soo qaadanay waxaynu horey uga soo hadalnay bisha soo gelitaankeedu muxuu ku sugnaadaa iyo markay soo gasho iyay waajib ku tahay si guud iyo si gaar oo fulinteeda isla wakhtigaa in lagu soomo ah waxaan soo ballan qaadnay xalqadan inaan laba arrimood ku soo qaadi doono oo kale ah soonku sidee buu ku ansaxaa maxaase jebiya masalada koobaad ama arrinta koobaad waa soonku muxuu ku ansaxaa qofka si uu u ansaxa maxaa looga baahan yahay waxaa ugu muhiimsan afar arrimood afar buu ku ansaxaa soonku kow inaad muslim tahay waay laba inuu qofku caqli leeyahay waayo saddex inaad habeenkii niyooto waayo afar inaad waxyaabaha soonka jebiya iska ilaaliso ama aanay kugu dhicin ta koobaad waa inaad muslim tahay sax waajib kuma ahaa niri qofkaan muslimka ahayn laakiin hadduu yihahdo waan iska soomayaa waa idinla soomayaa waan tijaabinayaa ma ansaxayaa maya wamaa manacahum an tuqbala minhu nafaqaatuhum ilaa anahum kafaruu billaahi waay waxba lagama aqbalo qofka gaalka ah saas darteed wuu isgaajayn karaa wuu is-oomin karaa wuu tijaabin karaa isagay u taal laakiin cibaado la aqbalay ma aho gaalnimadaa diideysa caqligu markaan leenahay qasad iyo niyay cibaadadu u baahan tahay qof aan caqligiisu jooginna qasad iyo niye kama suura gasho qof waalan oo maalinnimadii ramadaanka oo dhan waalan oo caqligiisa iyo maskaxdiisu aanay joogin ama da sababtu ha noqoto ama xanuuno kale iyo jiman iyo balaayo kale ha noqoto qofku hadduusan caqli iyo garasho lahayn soonka ma ansaxo saddex waxaan waa inaad habeenkii niyooto gaar ahaan soonku markuu waajib yahay inta aan salaad subax la gaadhin inaad niyooto wey niyada maxaa looga jeedaa in ku talagalkaagu yahay inaad berri soonto wey habeen walbana niyad gaaruu u baahan yahay bisha lama jumlayn kara hal mar oo ragcadihii hal salaad ka mid lamid maaha maalin walba waa cibaado gaar u taagan niyadeediina kaaga baahan niyadu wax la akhriya ma laha waa in maskaxdaadii iyo ku talagalkaagu yahay inaad berri soonto ood saa ku seexato haddii abaad soo kacdood suxuuranayso oo si aad u soonto u suxuuranaysana niyadii waabaad haysaa uma baahnid niyo kale nabigaana saa sheegay sal ly slam qofkaan habeennimadii ku waabariisanin niyad soon ah soon uma jiro qodobka afraadna waxaynu niri ugu dambeeyaa waa inaad waxyaabaha soonka jebiye ka badbaado waa inaad ka badbaaddo waxa soonka jebiye oo muxuu yahay waxa soonka jebiyahay waa qodobkeena labaad ee cashirka afartaasi oo hayna islaamnimadii caqligii niyadii habeenkii la niyooday iyo in laga badbaada waxyaabaha soonka jebiyahay afartaasaa aasaas u ah soonkii inuu asaxo qodobka labaad waxyaabaha soonka jebiye wey haddaynu soo uruurinno waxaan ku soo uruurin karnaa 5 soonka jebisa
dii la faahfaahiyo way badan karaan laakiin inaan kuu soo koobaan doonayaa markii faahfaahinteeda loo baahdo wakhtigeeda wey. waxaa koowaad ee soonka jabiya alridda, qofku diinta inuu ka baxa wey. muslim buu ahaa, uu soomanaa, hadduu gaaloobo oo diinta ka baxo soonkaa waa jabay. maxaa ka dhalanaya? hadduu isla maalintaa dib u soo islaamo oo soo noqdo maalintaa wuu qallayn oo way jabtay soonkeedii. saas darteed islaamnimadu shardiba idin u asaxo, gaalnimaduna way jabisaa hadday dhexda ka timaado. haddayba jirtay markii horena inuu ansaxay diidaa. taas waa qodobka koobaad. qodobka labaad waa inuu qofku kas isaga matajiyo. qofku mantag hadduu ka yimaado laba mid unbuu noqdaa: inuu soo dhaafoosan iska keenin, ama markaa hayn waayo, ama iyadoo isku taxallujininba inuu hayo, ama kadis baa kaga yimaado. inuu soo dhaafo iyo isagu inuu iska doondoono iska keenkeeno. hadduu soo dhaafo soonkiisa waxba uma dhimo, hadduu isagu iska keenkeenase soonka waa jabaa. wuu jabaa macnaheedu waa dambaabtay maaha, inaabad xanuunsantooda cudurdaar leedaha dhici karta, laakiin soonkii wuu jabayaa wey. in qofku kas mantag saa keena. nabigaana saa yidhi sal lla alay slam, qofkii matag soo dhaafaayey wax qadaa laguma leh, qofka iska matajiyana ha qadeeyo ayuu nabiguna faray sal lla alay slam. qodobka saddexaad ee jebiye soonka waa gabadhu inuu dhiiggii caadadu ku dhaco ama kii umusha. dhiiggii caadada iyo kii umusha midkood hadduu ku dhaco ayadoo sooman, soomkaasi waa jabayaa. iyadoo dembi kuma laha, laakiin soomku waa jabayaayo marka hore hadday caado qabto ama umushii dhiiggii ku jirtana kama ansaxo. hadduu gadaal kaga yimaada iyadoo soomanaydna soonkaasi waa jabaa. intaasi waa saddex. qodobka afraad waa cuniya cabitaan toos ah ama dadban. cunadii cabitaanka toosihii waa kuwii laga qaato afka oo meesha caadiga iyo dabiiciga laga qaato. haddii qofku wax cuno ama cabo soonkiisu waa jabaya. cuniya cabitaan dadbanna waa wixii cabitaan iyo cuno ah ee laga qaato waxaan afka ahayn. waa sankii biyaha kor loogu jiiday ay dhuunta ku dhaceen, ama dhagaha haddayba u duleelaan intii wax lagu shubo ay hoos u dhaadhacaan, ama jirka kale meelaha dhiigga ah nafaqada iyo faleebooyinka la ragmariyo ee booska cuntada iyo cabitaanka galana. waxaan leenahay waa cuniya cabitaan dadban oo toosna afkii caadiga ahaa loogama cunin oo loogama cabin. wixii ay qabanaysay cunada iyo cabitaanka afka laga isticmaalayna way qabanayaan. iyagana waxaan ku soo ururinaynaa cuniya cabitaan toos ah ama dadban. qodobka shanaad ee soonka jabiyaaye waa gudashada shahwada tooska ah iyo midda dadban. shahwada tooskaa gudashadeedu waa xiriirka gogosha iyo galmada ee rag iyo dumar dhex mara, ama xalaal asalkiisii ahaadoo dad xelo isqaba ha noqdaan, ama xaaraan ha usii dheeraato oo gogol dhaaf ha noqdo. marba hadduu xiriir gogol iyo galmo yimaado waa gudasho shahwadii oo toos ah. soonka way jebisaa. iyadoo dadbanna way jebisaayo hadduu qofkii shahwadii isaga keeno si kale, oo waxaa fuqahadii carabigu ay yidhaahdaan istimnaha ama jalda camiir ay yidhaahdaan, soomaaliduna siigaysi ay yidhaahdaan wey. qofka hadduu shahwadii isaga keeno fal isagu uu leeyahay, sax galma iyo gogol toosa ma aha,
laakiin waa gudasho shahwo oo dadban weeye. sidii cubnadii iyo cabbitaankii dadbanaa ay cunnada iyo cabbitaanka tooska ah lamidka u hayeen ayay middanina shahwadii gudashadeedii iyo galmadii tooska ahayd iyadoo gudasho dadban ah weeye oo isla macnihii iyo baahidii daboolaysa. saas darteed midda tooska iyo midda dadbaniba soonka way jebiyaan. qodobkaa waxa soonka jebiye ah, waxyaabaha soonka markay jebinayaan 3 arrimood baa la ilaalinayaa oo ah in la eego qofkii misantaa mid ka mida 5taa mid ka mida markuu ka dhaco, marka laga reebo xaydka iyo nifaaska iyo riddada iyo diinka baxa, mataga, cunnada iyo cabbitaanka iyo gudashada shahwada. markay soonka jebinayaan 3 arrimood ee soo socda waa la ilaalinayaa. mararka qaarkoodna riddadaa soo gelaysa haddii xukunkeedii baan sugnaanayn. kow, qofku waa inuu khiyaarkii ku sameeyo. haddii la qasbo waxba kama jabaan soonkii. qasab ku gaalow haddii la yidhaahdo, qasab galmada iyo gogosha ku samee haddii la yidhaahdo, qasab cunno iyo cabbitaan ku samee haddii la yidhaahdo, soonkiisu waxba ma jabo ousan khiyaar lahayn. 2, waa inuusan halmaansanayn oo ulakas uu u sameeyo. hadduu cunoo cabba isagoo halmaansan soonkii, ama uu galmi iyo gogoshi iyo xashahwa gudashadii dadbanaydba sameeyo isagoo soonkiisii halmaansan, ama iskaba matajiya isagoo soonkiisii halmaansan, soonkiisii waxba u dhinmi maayaan. oo nabigaa sheegay sala allahu alayh ali wasalam inuu qofkii cunaya ama cabba isagoo halmaansan soonkiisa dhammaystiranaya. qodobka 3aad ee ilaalinta u baahan qofku waxaan soonka inuu jebinaya inuu yaqaan wey. hadduu sameeyo waxyaabaha qaarkood isagoon u haysanin soonkii inuu ka jabayo, ama wax soonka jebiyaba ay yihiin, soonkiisi ma jabayo. saxaabada nebiga qaar sameeyey xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr, ayay qaarkood sii cuneen oo sii cabbeen iyadoo waagii beryey ilaa ay kala gartaan guri aanan lahayn labada xariig ee madow iyo caddiinka. soonkii soo qadeeyana lama dhihin. isla qodobka waxaa kaloo la xiriira 4 arrimood waan soonka jebin laakiin dadku laga yaaba inay moodaan soonka inay jebiyaan. kow, waxaa ka mid inaad istoobto. waxaa lamid inaad dhiig iska qaado ama qof kale u shubto, soonka ma jebiyo. 2, inaad qabaysato. haddaan biyo kugu cararin oon afkiiyo kaa gelin sankiiyo hoos kugu dhaadhicin soonkaaga ma jabayo. waxaan soonka jebin in waagu kuu beriyo adoo janaabo qaba, janaabo habeenkii ahayd say dooniba ha ku timaadee, adoon weli ka qabaysan waaga hadduu kuu beriyo soonku kaama jabo. ugu dambayn, adoo maalinimo hurda haddii intuu riyoodo qofku biyi iyo shahwadii ka timaado, isagoo hurda wixii ka yimid waxuu kas u sameeye ma ahano, soonka ma jebiso. intaasna cashirkeennii 2 ayaynu ku soo gabagabaynaynaa oon kaga hadlaynay soonku sideebuu ku asaxaa, maxaase soonka jebiya, iyo masaa'il dhammaystiroo la xiriiray. intaan cashirka 3aad isugu imanayno sidaa iyo nabadgelya. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.